asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa xiriirka guurka ka dhigay mid ku salaysan naxariis iyo kalgacayl iyo isfahan. Waana xiriirka ama calaaqada ugu sarraysa calaaqooyinka dhex mara bani aadamka. Waxaa mid walba oo labada isqabta ka mid ah u bannaan in uu midba ku raaxaysto midka kale jasadkiisa ama jirkiisa. Wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaalaa: hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. Iyagu labis ama sutro iyo xifdin ayay idin yihiin, idinkuna sidoo kale labis iyo sutro iyo xifdin ayaad u tihiin. Sidoo kale wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa suuratulbaqara dhexdeeda ku yidhi: nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum annaa shi'tum. Dumarkiinu waxay idin yihiin beertiina, ama waa halkii aad wax ku beeranayseen, oo waxaad dhex dhigaysaan nutfadii ama shahwadii ayaad dhex dhigaysaan riximkooda, kadibna awlaad ayaa ka soo baxda alle subxaanahu wa tacaalaa doonistiisa. Haddaba qaabkaad doontaan oogu taga dumarkiina, idinkoo oogu tagaya ama oogu jimaacaya halkii loogu talagalay oo keliya, halkaasoo ah farjiyadooda. Wuxuuna rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in xiriirka ama calaaqada u dhaxaysa labada qof ee isqabta ay ku salaysan tahay axkaam sharci ah. Wuxuuna nebigu sallallahu calayhi wasallam inooga digay dhowr arrimood oo aysan ninka u bannaanayn in uu ku sameeyo xaaskiisa, kuwaasoo ay ka dhalan karto dhibaatooyin shakhsiyadeed iyo kuwo caafimaad oo labada dhinacba saameyn ku yeelan kara. Sidaas darteeda waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa arrimahaas aanan bannaanayn, balse ka hor inta aanan bilaabin, fadlan daawade ha iloobin muuqaalka inaad like saarto. Haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Arrin walba oo uu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam inaga reebay waxaa hubaal ah in uu yahay arrin ina dhibaya ama ay dhibaatooyin inoogu sugan yihiin. Diinteena Islaamku waa diin aad u khayr iyo barako iyo naxariis badan. Sidaas darteeda wuxuu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in xitaa markaad doonayso inaad xaaskaaga ugu tagto si wanaagsan oo caafimaad leh, in ay waajib tahay inaad ka fogaato arrimahan soo socda ee xaaraanta ah. Arrimahaas uu nabigu sallallahu calayhi wasallam inaga reebay ayaa waxaa ugu horreeya waxa loo yaqaano jimaacu dubur, ama in haweenayda gadaal looga tago ama in looga tago meel aanan ahayn farjigeeda. Arrinkaasuna waa arrin diiniyan iyo caafimaad ahaanba xaaraan ah, waxa ku sugan oo dhibaatooyin ah awgii. Waxaana arrintaas lagu xarrimay Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiistii Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo ijmaacii culimada, taasoo ay sabab u tahay dhibaatooyinka ay arrintaas u geysan karto haweenayda iyo ninkaba caafimaadkooda. Maxaa yeelay duburku ama dabadu waa meel nijaaso ah, waxayna mas'uul ka tahay wasakhda iyo qashinka saaridooda, mana ahan meel lagu talagalay in xiriir jinsi laga sameeyo. Waxaa jiraan dhowr daliil oo caddaynaya in ay xaaraan tahay in haweenka duburka ama gadaal looga tago. Waxaana ka mid ah qowlkii alle subxaanahu wa tacaalaa: fa'tuuhunna min xaysu amarakumullah. Waxaad ooga tagtaan oo keliya halkii uu alle subxaanahu wa tacaalaa idinku amray ama uu idiin banneeyey. Sidoo kale wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam: malcuunun man ata almar'ata fii duburiha. Waa uu lacnadan yahay qofkii haweenay duburkeeda ooga taga. Sidoo kale haweenayda uma bannaana in ay arrinkaas ku ateecdo zawjkeeda, maxaa yeelay makhluuqa xaq uma lahan in lagu ateeco Allaha khaaliqa ah subxaanahu wa tacaalaa ku caasintiisa.
arrinka labaad ee aanan bannaanayn ee xaaraanta ah ayaa wuxuu yahay in ninku uu xaaskiisa u tago iyadoo xayd ama dhiigga caadada qabta waxaana u daliil ah qowlkii alle subxaanahu wa tacaala ee uu suuratulbaqara dhexdeeda ku yidhi wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yaطhurn faidaa taطaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin waxay wax kaa weydiin doonaan dhiigga caadada ee nebi muxamedow waxaad ku tidhaahdaa waa dhiig wasakhaysan oo dhibaato u geysanaya qofkii u dhowaada ee ka fogaada inaad dumarkiina u galmootaan inta ay ku jiraan xilliga caadada ilaa ay ka daahir noqdaan markuu dhiiggu ka go'o oo ay ka qubaysatana waxaad ooga tagtaan halkii uu alle subxaanahu wa tacaala idiin banneeyey oo ah farjiyadooda allena subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay addoommadiisa istikfaarta iyo towbada badiya wuxuuna sidoo kale alle subxaanahu wa tacaala jecel yahay addoommadiisa tahaarada ku dadaala ee ka fogaada fawaaxishta iyo wasakhda sidoo kale waxaa raajax ah in aysan u bannaanayn in uu u dhowaado ama uu tataabto inta u dhaxaysa xudunteeda ilaa iyo jilibkeeda waxaana u daliil ah qowlkii ay tiri ummuna caaisha radiyallahu canha kaanat ixdaana idaa kaanat xaa'idan fa araada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam an yubaashirahaa amarahaa an tattazira fii fawri xaydatiha huma yubaashiruhaa akhrajahu albukhaariyu wa muslim waxay tiri ummuna caaisha radiyallahu canha haweenkii nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii middeena ay caado qabto oo kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu doono inuu la mubaasharoodo ama uu la fara cayaaro wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama ku amri jiray in ay hoosgunti xirtaan kadib ayuuna la mubaasharoon jiray sala allahu calayhi wasalam arrinka saddexaad ee aanan bannaanayn ee xaaraanta ah ayaa wuxuu yahay aljimaacu filcibaadaat in jimaac ama galmo lagu sameeyo cibaadooyinka dhexdooda waxaana loola jeedaa in labadii isqabta ay jimaac ama galmo sameeyaan iyadoo lagu jiro xilliyada cibaadada sida soonka iyo xajka iyo ixraamka oo kale waana arrin mamnuuc ah oo xaaraan ah maxaa yeelay wuxuu dib u dhigayaa wakhtiga cibaadada ama waa uu burinayaa waxaa qofka muslimka waajib ku ah in uu xakameeyo shahawaadkiisa marka uu gudanayo cibaadooyinka sida soonka iyo xajka oo kale oo ay waajib tahay in la ixtiraamo wakhtiyadooda waxaana sidoo kale waajib ku ah in uu ka fogaado wax walba oo shahwada kicin kara arrinka afaraad ee aanan bannaanayn ee xaaraanta ah ayaa wuxuu yahay in dadka loo sheegsheego arrimaha la xidhiira jimaaca ama galmada u dhaxaysa ninka iyo xaaskiisa waxaan ninka iyo xaaskiisaba u bannaanayn in mid walba uu dadka kale ooga warramo wixii labadooda dhex maray ee la xidhiira arrimaha jinsiga ah waxaana u daliil ah qowlkii nebiga sala allahu calayhi wasalama ee uu yidhi inna shara annaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaamah alrajulu yufdii ila imra'atihi wa tufdii ilayh huma yanshuru siraha akhrajahu muslim wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa maalinka qiyaamaha alle subxaanahu wa tacaala agtiisa oogu shar badan ninka intuu xaaskiisa u dhardhigtay oo iyaduna ay u dhardhigatay oo kadibna faafiya sirteeda arrinka shanaad ee aanan bannaanayn ee xaaraanta ah ayaa wuxuu yahay in labadii isqabtay ay daawadaan aflaanta ama filimada jinsiga ah waxaan labadoodaba u bannaanayn in ay daawadaan filimada jinsiga ah iyadoo ujeedku uu yahay in lagu kiciyo shahwada maxaa yeelay waxay filimadaasu ka samaysan yihiin dad qaaqaawan iyo muuqaallo aanan bannaanayn oo xaaraan ah
فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.